Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal dhammaantiinba soo dhowaada waxaan maantay soo gudbinaynaa cashir aad iyo aad u muhiim ah oo aad sugayseen wuxuu ku saabsan yahay probability-ga iyo possibility-ga meesha trade-ka ugu habboon ee aad ka qaadan kartid ee ugu wanaagsan iyo waxa macquulka ah ee dhici kara haddii aan idinlana sawiro si aan idinkaga faa'iideeyo qaabka aad u sawiran kartid lacag sidaan oo kaleeta oo aad structure qurux badan iyo trade lane qurux badan iyo qaab qurux badan oo aad button-kana clear aad ugu arki karto si wanaagsan aad ugu sawiran karto waxaan kula sawirayaa kulana falanqeynaya lacagtan kaagana faa'iideynaya probability-ga iyo possibility-ga ay leedahay mar waliba annaga waxaan isticmaalnaa market structure-ka iyo price action-ka iyo patterns-ka waxa ay samaynayaan ayaa noo muhiim ah waxaana ku isticmaalnaa waa trade line marka iyo ray lane-ka iyo trade lane-ka aad iyo aad ayay muhiim u yihiin marka waxaan sawiranaynaa ray lane-keena ayaan sawiranaynaa oo waxaan dhigaynaa meeshii ugu sarreysay ee suuqa ayaan dhiganaynaa laga soo celiyey oo halkan rejection-ka uu ka yimid wiigaas cirifkiisa ayaan dhigaynaa wiigaas cirifkiisa markii aan dhigno waxaan imaanaynaa meeshii ugu hooseysay ee halkan ahayd oo impulsive-kan oo bull flag uu ka dhacay ayaan imaanaynaa waxaan kaloo dhiganaynaa trade lane-keena ayaan dhiganaynaa oo aan ku dabaqayno sidaan ayaan trade lane-keena isagana u sawiranaynaa trade lane-keena hoose isagana sidaan ayaan u sawiranaynaa sidaan marka waxaan arkaynaa in trade lane-keena halkan la jebiyey sidoo kale waxaan arkaynaa in double top-keenana la jebiyey ayaan arkaynaa oo halkan waxaan haysanay double top-keenana waa la jebiyey trade lane-keenana waa la jebiyey sidaas darteed mar waliba oo trade lane-ka la jebiyo waxaan idinkula taliyaa in aad soo rabataan trade lane-ka inaad soo rabataan oo aad wax yar si fiican aad diirad ugu saartaan impulsive-kaas baxay iyo pattern-kaas waxa uu samayn doono in aad trade lane-ka wax yar kasoo doojisaan afkiisa hore oo aad u ogolaataan in uu sidaas noqdo trade lane-ka mar waliba uu pattern isdhamaystiro waxa bilowdo waa pattern kale pattern separation-kana isagana cashir ayaan ka samayn doonaa iyo pattern ku dul samaysmo pattern kale marka waa maxay probability-ga iyo possibility-ga lacagtan ay leedahay sidee ayaana ugu dabaqi karaa probability iyo possibility-ga anigoo uga faa'iideysanayo probability-ga iyo possibility-ga haddii aad si fiican u fahantid kuna dhaqantid khasaarahaada aad iyo aad ayuu u yaraan doonaa mana jiri doonto in lacag aad si fudud ama si sahla u qaadato adiga oo ka fiirinayo possibility-ga ay samaynayso iyo probability-ga lacagtan ay samaynayso labadan qaacido aad iyo aad ayuu cashirkan muhiim ugu yahay marka halkan aan joogno waa probability-geena oo laba way ayaa loo jebiyaa marka aan joogno double top-ka amaba trade lane-ka korkiisa laba way ayaa loo jebiyaa marka uu isdhamaystirayo waxaa loo jebiyaa impulsive ahaan oo qaab noocan oo kale oo hadda loo jebiyey oo kale impulsive ahaan ayaa loo jebiyaa marna waxaa loo jebiyaa corrective ahaan oo qaab noocan oo kale ayaa loo jebiyaa qaab noocan oo kale ah marka loo jebinayo waa ascending ahaan oo structure-kii three-touch-ka ahaa halkaas ayuu dhamaystirayaa with mini double top ayuu halkaas ku samaynayaa kadibna sidaas ayuu sel kusoo aadaya qaabkaas haddii aysan dhicin waxaa kale oo dhici kara oo uu u jebiyaa oo aan aragno in impulsive ahaan sidaan oo kaleeta uu ugu jebiyo impulsive ahaan sidaan oo kaleeta marka uu u jebiyo waa resistance iyo support-ka dadka isticmaalo fadlan support iyo resistance-ga ka fogow waa taladeyda haddii aadan hadda maqlinna dib dambe ayaad ka maqli doontaa iska wado howshaada indicator haddii aad isticmaalayso ka fogow sidoo kale haddii aadan maqlin dib dambe ayaad ka ogaan doontaa robot haddii aad isticmaalaysana ka fogow haddii aadan maqlinna dib dambe ayaad warkan ka rumaysan doontaa okay intaas ayaa uga gudbaya taladaas halkan markii uu qaabkan ku sameeyo probability-geena oo ah meesha hadeertan suuqa uu joogo halkan inaan ka seel garayno ayaan rabnay markaan ka seel garaynayno halkan oo aan rabno in aan ka seel garayno waxa aan sugayno waa entry-ga aan sugayno qaabkee ayuu suuqan sel ugu soo aadaya oo aan entry-gayga u helaya
waa su'aasha ugu muhiimsan mar waliba oo aad lacag rabtid in aad analyze garayso ama aad rabtid in aad ogaato xaaladeeda oo aad la socotay mar waliba high time frame waa qasab hadda waxa aan joogno waa 1 week haddii aad aragto 1 weeka suuqa ayaad ku fiirinaysaa oo structure-kii kore ayaa kuu muuqda halkan waxaad arkaysaa in uu yahay iyo qaabka uu u tagay ayaad arkaysaa double topkaas halkan impulsive ayaa ka baxay meeshan waa correction waa impulsive waa easy indhahaada keliya in ay kuu kala furnaadaan ayaa muhiim ah haddii uu halkan ku tegi lahaa qaab noocan oo kaleeta ah trade lanekan halkaana double topkaas isagoon la gaarin ayaa possible ahayd in uu suuqa soo daato intaas ma fahantay mase si wanaagsan ayaan kugu celiyaa haddii trade lanekan halkan hadeertan uu jebiyey oo corrective ahaan halkan ku tegi lahaa qaab noocan oo kaleeta qaab noocan oo kaleeta qaab noocan oo kaleeta qaab noocan oo kaleeta haddii uu ku tegi lahaa meeshaas double topkaas isagoonan kan dhalka gaarin ayaa possible ahayd in uu soo daato uu sell soo aado laakiin maxaa dhacay impulsive ahaan ayaa dhacay trade lanekiina lagu jebiyey double topkiina lagu jebiyey maantay halkan in aan cashirkan ku sharaxayo oo aan live example lacagtan ugu sharaxayo aad iyo aad ayaad nasiib ugu leedahay oo aad ku arki kartaa waxa dhici doona USD SAR waxa toddobaadkan iyo toddobaadka dambaba dhici doona selkeeda xooga badan ee soo socdana in aad ka faa'iidaysan doonto ayaan rajaynayaa biidnillah marka meeshan hadda aan joogno waa probability-geeda oo ah double topkaas in uu dhammaystiro sidee marka double topkan maxaa dhici doona waxa dhici doona waa muhiim oo ah waxa aan ka sheekaynayna hadda waxa dhici doona waa candle rejection ah ayaa dhici doona oo candlekaas rejectionka markuu dhaco ayaad entrygaas waxaad ka helaysaa steep flag ahaan haddii uu kugu sameeyo iyo tight flag ahaan ama large flag ahaan haddii uu u sameeyaba mar waliba waxa aan sugayno waa selkaas xooga badan maxaa kaloo possible ah waxa possible-ka ah halkan ayay ka dhici doonaan oo ah in mar labaad uu suuqii baxo halkan uu ka sameeyo triple markaas ay noqoto top in ay noqoto oo 1 2 3 kadibna halkaas uu sell ka soo aado waxa probability-gana waa halkan in uu hadeertan ka soo baxo kadibna qaabkaas uu sell u soo aado ma dhici kartaa in uu ma possible ma tahay oo wax macquul ah ma tahay in lacagtan ay sii socoto oo ay buy ku sii socoto waa macquul laakiin hadda ma aragna saansaan ay buy u sii aadayso waayo sababtoo ah markuu impulsive ka baxo waxa aad sugaysid waa tight correction amaba steep flag ahaan in uu sidaas usoo testigareeyo ama large flag in uu sidaas u sameeyo kadibna uu buydiisa uu sii aado intiina hadeertaan wax aan ka arkina ma jirto waxa keliya oo aan sugaynana waa candle rejection ah berri ama maanta in uu dhaco candle rejection ah kadibna aan soo qaadano selkeena aan usoo aado waa entryga halkaas ka helo 1 week ayaan joognaa rejection candlekii ayaan sugaynaa dailyga iyo 4 hourka waan kusii filter garay doonaa oo waxa dhici doona ayaan arki doonaa laakiin aan kula sameeyo oo aan kula sawiro sawir gacmeed aad iyo aad kuusii anfici doono oo mar walibana aad arki doonto in uu dhici doono iyo aan kugu sii jilcinayo cashirka probability-ga iyo possible-ka dhici doona maxay yihiin impulsive ayaa dhacaya kadibna steep flag ahaan ayaa loo soo testigaraynayaa maxay ahayd trade lane-kaaga waxa dhacaya waa impulsive qaab noocan oo kaleeta okay sidan markii ay dhacdo raylankeena ayaan soo qaadanaynaa kadibna waxaan ku taagaynaa double topkeena ayaan ku taagaynaa double topkeena halkaas waxaan haysanaa trade lane waan haysanaa trade lanekan aan haysano halkan waxaan sugaynaa taabasho kale oo ah 1 2 3 in uu mar saddexaad noo soo taabto waxa possible-kana waa in double topkan uu suuqii kasoo laabto oo halkan risk entry-geena aan ka qaadano kadibna suuqii asagoonan gaarin trade lanekaas in uu sell soo aado dhagahaada inaad si fiican u furto ayaan jeclahay meeshan ayaa kaaga muhiimsan jartiskii aan ku geynay oo mar waliba lacag sidaan samaynayso ayaad arki kartaa maxaa probability-ga ah in uu suuqii halkan jebiyo kadibna meeshan uu ku tago ascending ahaan uu ku tago markaas
waxa probability-ga kuu siinaya waxay tahay ascending within ascending oo treatage ah waa high probability suuqii sell aad ku soo aadi kartid oo aad ku aamini kartid 99%. meesha possible-ka ana waa in uusan midna ascending-ka samayn laakiin uu ka laabto double top-kaas in uu ka laabto uu sell soo aado. haddii uu halkan suuqa ka laabanayo adiga waa inaad aqoon u leedahay in meeshan ay tahay possible oo ay tahay in double top-kaas la dhamaystiray oo uusan suuqa u baahnayn in uu high probability-gaas tago uu soo laabto. halkan waa meel aad trade ka qaadan kartid, halkanna waa meel aad ku sugi kartid haddii uu entry-gaas ku dhaafo in aad trade ka qaadan kartid. haddii kalena meeshan high probability-ga uu ku tago uu kuu sameeyo small ascending-kaas uu kuu sameeyo ascending with ascending treatage high probability ayaad haysataa oo aad suuqii ugu sii aadi kartid aad ku qaadan kartid trade-kii. intaas inaad fahantay ayaan rajaynayaa. waa iska tiraynaa waxaana ku geynayaa 4 hour ayaan ku geynayaa si aan batankii si fiican ugu aragno iyo waxa hadeertaan dhacayo. hadda waxaan aragnaa in lacagtii ay bilowdo in ay soo daadato laakiin si fiican haddii aan usii clean garayno batanka haddii aan sii clean garayno hadda halkan waxaan aragnaa in USD saan qaab noocaan oo kale u daadato. waa macquul in ay laabato oo bartaan ay tagto laakiin probability maaha. ogow waa possible in ay imaato. meeshan waa qaabka aad u manage garay kartid trade-kaaga. ogow trade management-ga waxaad maqashay risk management laakiin trade management-ga aad iyo aad ayuu u xoog badan yahay oo ah in aadan ba khasaare la kulmin oo trade waxaad arkaysaa kuu furnaa profit kuu socdo in uu minus isku bedelo oo stop loss uu kaaga dhaco sababtoo waxaa weli ku haysto trade management-ga ayaa ku haysto. trade management-ga inaad iska saxdo aad iyo aad ayay muhiim u tahay oo waxaad arkaysaa halkan in ay possible tahay in suuqii uu kula laabto halkan tago. meeshan haddii aad ka aragta reversal in uu suuqii kor aadayo waad ka baxaysaa lacagtaada profit-kana waa xiranaysaa kadibna halkan ayaad kasoo raacaysaa corrective aan haddii uu ascending ku sameeyo waana meel uu kasoo daadan karo. haddii uu halkan kuu jebiyana lacagtaada entry kale ayaad halkaas kasii helaysaa. haddii uu steve flag aan u jebiyo uu qaab noocan oo kaleeta u testing gareeyo ogow suuqii buy ma aadin waa steve flag bataniska aan meesha kugu shubay si fiican u daawo ka dharag. haddii uu large flag kuu sameeyana weli waxba ismaysan bedelin weli waa sidiisii oo suuqa sidii ayuu ku socdaa. okay intaas inaad fahanto ayaan jeclahay. intaas ayaana kugu soo gabagabaynaa tusaalaha USD SAR. waxaan kula tegayaa USD CAD ayaan kula tegayaa iyadana si aan si saxan ugu tuso. halkan waxaan joognaa one week ayaan joognaa. mar waliba oo aad lacag analyze garaynaysa please tag 1 week tag high time frame tag arag structure-ka iyo waxa lacagta ay samaynayso. bataniska si clear ah kugu muuqdaan oo wax waliba waa in ay hoostaada yimaadaan. haddii aad se konton ulood dhigato waxa waaye waa aad iyo aad ayay u dhib badan tahay in aad aragto oo aad si clear ah u aragto. hadda waxaan haysanaa meeshaas double top ayaan haysanay. trail lane-ka iyo trade lane-ka aad ayay ku anfacayaan. halkan waa impulsive correction continuation. waxa aad heshay waa ascending descending kadibna waxa yimid waa impulsive oo waxaa kaloo dhihi kartaa halkan impulsive corrective ah ayaa ka dhacay steve flag kadibna impulsive ayaa dhacay oo waxaan tagnay double top-keena ayaan tagnay oo structure-ka sidii ayuu isku saxay. okay maxaa dhici doona waa maxay probability-ga? probability-gu waa meeshan in uu suuqu kasoo laabto. possible-kana waxay ahayd in trade lane-kan halkaana uu suuqii ka laabto. okay waxaan ku geynayaa one day waxaan arkaynaa in waxaan arkaynaa hadda okay
4 hours si aan clear ku sii aragno waxa dhici kara. Okay, 1 hour. Okay, it's nice. 1 hour-ka aad iyo aad ayuu u fiican yahay oo aan buttonkiisi clear ayaan u arki karnaa. Okay, halkan marka aad joogto wax waliba oo suuqan ka dhacayo waa buttonka iyo price actionka inaad xooga saarto rail lane-kaaga iyo trade lane-kaaga in aad ku dabaqdo. Hadda waa maxay possible-ka lacagtan waa in sidaan ay samayso section 1 section 2 section 3 oo ay halkaas seel qurux badan ka soo aado. Maxaa probability-geeda lacagtan ah in ay samayso waa in ay jebiso kadibna corrective halkaas in ay ka samayso double top iyo double topkii aan haysanay one day-ga iyo weekly-ga triple top in ay noqoto kadibna si qurux badan ay halkaas USD CAD uga soo daadato. Waa probability-geena. Possible-kana waa in halkan ay ka laabato oo meesha aan ku sugayna hadda oo aan rabno inaan risk entry-geena ka qaadano waa halkan haddii uu maxay ahayd jebiyana waxaan ku sugaynaa waa halkan oo ah high probability-geena. Waana clear button oo aad si qurux badan u arki kartid oo aad ku aamini kartid. Support iyo resistance haddii aad isticmaalayso meeshan support iyo resistance waxay ka qabanaysa malaha. Suuqaana waa ku lugoysaa lugooyo ayaadna maxay ahayd iyo niyad jab ayaad kala kulmaysaa. Support iyo resistance, robot iyo indicator-na isaga kaba fogow qofkii isticmaala waxa weeye waa qof raba in uu ku qasaariyo oo aanan kalsoonidii suuqa lahayn. Waa qof ka maarmay buttonskii iyo candlestick. Suuqaana waxa ay ku shaqeeyaan waa candlestick iyo button. Nin marka 3 ulood iyo 2 ulood inta suuqii soo saartay yiri ayaga ay hagayo meeshay aadaan u raacaya waa dhibaato. Marka halkan waa meesha entry-geena aan ka qaadanay oo aan sell uga soo qaadanay. Meeshan marka inay wax ka dhacayaan waxaad arkaysaa in uu suuqa angle-ka uu samaysanayo horta waa muhiim. Meesha suuqa uu ka laabanayo iyo meesha uu aadayana mar waliba waxa ku sheegay waa button. Haddaba halkan waxaa ka haysataa waa impulsive. Halkan tight flag ayaa ka dhacay oo entry-ga impulsive steep flag. Waxa probability-ga waa halkaas inaan ku sugno ama in uu halkan steep flag u yimaado qaab noocaan oo kaleeta in uu correction u yimaado halkaas inuu correction ahaan u yimaado kadibna aan ka seel garayno. Waxaan rajaynayaa in tusaalayaal cadcad aad heshay oo si walba oo aan kuu fahansiin karana aan sameeyey. Haddii aad wax ka fahantay commentiga hoose waad nagu reebi kartaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.